shirkadda Siisaleerka magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ee Heeko ayaa maanta si weyn uga qayb qaadanaysa ololaha nadaafadda magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer. Cali Ciga Maxamed oo ah magaca suuqaynta shirkadda Heeko iyo Cabdi Fataax oo kamid ah saraakiisha sare ee shirkadda Leerka Heeko ayaa ka hadlay sida ay uga qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer. ololahanna anagu shirkad ahaan ka Heeko ahaan baanu kaga qayb gelaynaa shaqaalahayagii iyo staafkayagii iyo gaadiidkayagiiba kaalintii nologu talagalay iyo mid ka badan ba inaanu qaadanaa diyaar u nahay waxaana kala diyaar u nahay in ay sii socoto ololaha nadaafadu oo sii socdo inaanu mar walba ka qayb qaadano hawshaas horumarka iyo bilicda magaalada lagu nadiifinayo aad baan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka ee jooga goobtan ee hawshan iyo maamulka degmadaba waxaan leeyahay dhamaantiin reer Burco aynu soo jeesano magaaladeena oo nadiif ah sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta kala qayb qaadano anagoo ah shirkadda Heeko maamulka degmada iyo ka gobolkaba nadiifinta deegaanka waayo waa laf dhabarta nolosha bini'aadmiga caafimaad ahaan bulsho ahaan waayo bulsho caafimaad qabta ayaa laga helaa bulsho xooga way isku xidhan yihiin farxad gaar ah noo tahay waanu ka shaqeeynaa waana wadi doonaa waxaan ballan qaadaynaa inaanu maamulka cusub ee degmadana aanu ka siino intii karaankayada xoog iyo xal waxaan kari karno waayo waa qasab qof reeri gurigaaga iyo deegaankaaga nadiifi mas'uuliyadda koobaad diinta faraysa marka labaad ee lagu baraarujiyana waa inuu nafta iyo maalka wuxuu kari karo uu ku bixiyo waanu soo dhaweynaa waanu ka qayb qaadanaynaa anagu mas'uuliyiinta anaga Siciid Cali Usmaan Xaalays telefishinka caalamiga ee Gobolnimo magaalada Burco xarunta gobolka